الفتاوى الشرعية. إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق iska wada jira hadhow hadduu asigu ilmo wax gartaan ogaayo hadhow markuu canuga xoogaa buu leeyahay agaarkayga saan kuu soo dhaqaaliy ma oga aabbow waa ogaa laakiin ratigi uun waa oga kaasuu leeyahay yaa dee kuu sheeg inuu xoogay uma qabiyo mogta ratigaad goglada siisay waa la socdaa waa ku abaal sheega maagi kaasuu wuxuu waa ogaa uun wax ilma waxaa jira mogta khatarhood isleedahay iyagu wax ma ogaad isleedahay ilan waxbay fiirihaya dadku isku daran maa mogta hal iska maan weyn ahaa jiro waxaa jira iska yeela halna waxaa waaye khatar waay طيب بسم الله masaladii hore waxay ahaday koobaha ma lagu duka karaa salaada koobaha salaada waa lagu duka karaa Anas ibn Malik radiyallahu anhu inuu ahaan fila saxaabiga radiyallahu anhu la weydiiyey nabigu sallallahu alayhi wasallam koobaha ma ku duka jiray haa ayuu yiri axaadiista kale marka la akhri masjidka kula dukada kuma jirto iska fiiri xadiiska kuma jirto ma ku duka jiray haa waa moogta masjidka in la soo gasho yey kugu soo dhicin iyadoo ay maaragtay aysan ahayn مثلا مسجدka macnaha intaanan ka wada masjidkan sida loo dhaqaaliya laga wada ee wajcilat al-ardu yani maaragtay jacalت لي الأرض مسجدا وطهورا tii ahayd banaankaas hadii lagu dukaayo kobahaagu hadday daahir kuu yihiin ku duko soo ma garan waxaa xadiidka lala akhriya markaan leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu masaajida dhaqaalaynteeda ka yidhi axaadiis badan candhuufow arkayo didibkatan gacantiisa uga tira nabigu calayhi salaatu wasalaam macnaha masjidka maaha ixtiraamkiisu wax sahlan maaha soo ma arka adigu roogaaga waa un ka ilaalisaa sooma marka mahay ku munaasibta kula duko waa banaan tahay meeshii kalene iska ilaali soo ma fahmi mid kale hadii nijaasaysantaana ku dukamayso kitaabu tahaara waad ogta kitaabu tahaara waa la socotaa marka hadiina kaanisa ku daahirihiin masjidkina aadan maaragtay ku rafaadihayn soo ma garan inaad ku dukato waa ku furan tahay soo ma garan waa ka marka dada isku diriro waxay leeyihiin halna wuxuu leeyahay masjidkan la gelaa misan masjidka ula gelay roogaaga lama gashidi hadana wacdo guriga naga wacdo waxaan kobaleena inaan kula soo arufno ma ogosha maya xagga ku siibaad leedahay xagga loogu tale aduguna xagga ku siib khayr Allah ku siib guriga ilaahay maaragtay qashashada ka daay meel kale markaad ku dukayso macnaha saas ku duk ilaa saxaabada radiyallahu anhum dhulka ilaahay ku duka jiraan Soomaa masaajidan saan u quruxsan ma jirin soo moogidin masjidka xataa waxa iska waa kan xadiidka nabiga oo leeyahay salaatu wasalaam urgo sheekay habeenkii roob door azoo nabiga alayhi salaatu wasalaam markuu sujuudaan halkaas aan ku arko roobki iyo cas iyo maaragtay qayski aradiyo qoyan ilaa waxa waaye laamana saaran baadoo hada maaragtay hadda raydabkan iyo waxa waaye geedkan maraygan iyo geedihiisa masjid ku dhisatay lameer iyo male roob cilimaay mugta saaso kala waa dhulkuna soo waa la labeelaysaa bis caradaas la simaha ama alaabtan marka taas waa sidaas waana xadiis saxiix fi sahih al-bukhari yani meel maaragtay fuka ma jiriyo taas waa midaas kulli ayana lagu murmi jiray laakiin ma jirto hadda dacwadana de waxa la rabaa in iska ilaaliso odayaan waxaas war ka hayn adoo masjidki hadda goor sheekha nooga sheekay masjidka meel gadaashiisa ah meesha lagu weese qaato gaadi weydiin waxa waaye ku hora socday wadantaada markay kalkaaga sug marka meel gadaalaho masjidka idoo caga gubadahan beledka imidur kobiyaan fiirsado wiri dhulkan kula soo socda meel oo marshabiyeeda waaye oo macnaha aan wasaq iyo wax lahayn waa fiirsho oo nadiifiina arko waxaan maaga wiri gurigiisa gadaal uga yaala masjidkii meeshaan dhalla bal kobaha la mar iska fiirsho waliba reedaha ilan odayaa maha joogo wiri eegahay markaan sii socdaan arko oda bokoorasaan leh gurigan joolax uga yiriyo war waa fudaa oshi
meelahaas ay ku dhacda waa ka fakada marka adigan lafteeda yaan lagu daqrin oo niman war ka hayn waxaan yaa waxaas waa kooba masjid la gal ma maqli jirta yaa hebel kooba masjid la galaa la yidhaha waa run waa xun tahay marka suuraha qaarkood la fiiriyo soo ma xuma marka qaarkoodna si aad u sheegaysa ma wada oo mar lagu duka karaa jirtee la soco yaa بارك الله فيك تأسوا مسألة أو كبام الجدوكرة تيك لو وحي هذا وحي هذا وترك مثلا قفك وترك هذا عشاء لبدا رجعوا صناه وكذا بيسد كذا وترك ترى مدي من أو كسو جناندو مركز حبينك أو أبا هذا حدنه إنه وترك لا سمعي أو يسأل دو كذا haddana watar ka daba mariyo ma samay kariyaa watarkii salaadi kaligeeda inuu hal ragcoo kaligeeda iyo dukado ay shafci u noqoto kadib qiyaamuleylkiisa iyo habeen istaagiisa habeen kiciisa oo wato laba u dukado markii waagu soo dhawaado hal ragca haddana uu ku qor diiro taasu ma ansaxay soomay waa ansaxay culimadu waa haddaba aad u tilmaameen waxay leeyihiin مثلا صلاة الليل مثنى xadiidkii ahay صلاة النهار ma lamida ama salama mida waa masale meesha laga fahmaayey oo raggu ay baareen laakiin hadda uma socon halkaas laba laga raba waxaa kaloo jira xadiid ah laa witraani fi leyl habeenkii laba watar lama ogola asiga marka watar uu sameeyey haddana xoogaa tabaraha alla siiyo inuu kaco jaanisaa u soo baxay laba inuu dukado rabaa inuu watar ku daba mariyana waa rabiyaa laba way u furan tahay macnaha watar in loo daba mariyo waxaa keenay xadiid waxaa jira ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witran meeshaas asagoo ka ambaqaadayo wuxuu rabaa inuu marka xaaska hor yimid mataqaan laba watar habeen kuma dhici karaan mid xadiisteeda kolley ragaa dabagalaya darajaadkeeda iyo aakhiru yani salaatu leyl mathna waay iyo aakhira salaatikum bileyli watarka dhiga labadaa mas'ala isku soo dhacay muxuu marka samayhaa waxaa u furan si uu arrintaa u sameeyo labada xadib u sameeyay leeyihiin raga culamada weliba shaaficiyada ugu badan markay ka hadlayaan fiqiga wuxuu naqdul watriyaa layidhaha watarkii hore u buriyaa sidaasuu ku samayhaa kadibna mathnadiisoo wadaha hadhowna aakhirka marka joogo dhag ayuu hal ragac ku siihaa waa mas'alo furan intaan anigu ogahay wixii soo korrana in sha allahu tacaala waa idinku soo biirihaynaa intaan jaanis heli karno wabillahi towfiiq إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق بسم الله مسألة hore waxay ahaday oo labadii masalo shalan ka wadaa midii garhaysta horta wax la yiraahdo ma jira qofka beec marka la yiraahdo beecu tiiro dhow leh baa'ic iyo mushtari iyo thaman iyo mabiic iyo siiqo laba ka kooban baa'ic waxa waaye maaragtay mushtari laba sooma iyo thaman iyo maaragtay mabiic iyo ijaab iyo qabuul lixdaas uu leh beec intaas marka waxaas hadaba maaragtay maaha wax laazima maaha macnaha qofkaasu wax iska dhiibaayo dhahaya anaa raaliya waa ka laakiin haddii maalan uu diido maxkamad ma lagu geyn karaa sheega bar hadduu yidhaa garhaystiye u diiday maxkamadda mawaalada la leeyahay haddii lagu siina qaado dii kalena meesha ka tagay walba waxay wax adigu wadatee yaa kugula heshiiyey lacagta aad ku heshiiseen oo ratiga aad ku heshiiseen ma ku siiye ha way siiye maxaa ku haysataa garhaystiyaa dhiman garhaysta hadduu ku qortana qaado waa hadduu kuu diidane ka hadaaf walba howlaad wadatay aheed taas marka waa sidaas billahi tawfiiq midda kale waxay ahaaday iidana ducada maaragtay wiil iyo gabar oon muddo isqabay oo ilmo aan helin oo hibadii alle ay ka soo daahday
deeq alla bixiyo waa moogtahay ilmuhu yahabu liman yashaau inaathan wa yahabu liman yashaau dhukuur deeqdiyaa ka soo daahday alla hadda bixiyo moogtahay marka waxay yidhaahdeen tolka xagga maaragtay gabarta iyo xagga wiilkaba inay isu yimaadeen ku tufaana la rabaa adiga marka waxaa lagu weydiiyaa alla la barya aduu wax kale maad wax ka ogta alla in la baryo waa waajib waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigiin wuxuu udcuunii ibari astajib lakum waa meel walbaad ka baahantihiin aan wax idin qabtay adduunya aakhiraba soo warcad maa wixii lagu dara adigu marka waxaad ka ogtahay wadaadu wax aad ka ogtahay male laakiin allaan moogay canuufta ku soo tufa soo aruursha dhabarkuuga dhifo gabarta bug oda ajnabi ka ah oon shaqo ku lahayn oo haddaba la yaqaan aa dhahaya marada ka qaad fulful waa ka mid maxaalaha aan aqaanay ka mid tahay haddana la iska dhaaf odayaalkaan ka mid ee mugta ya ama weliba waa intaas kaliya nin ajnabiga loogu siin maayo waxaa la leeyahay oday oo gaara oo maaragtay hadduu raba maaragtay ama uun madax lagu sheego ama wadaahda la leeyahay hebela wuxuu yahay tin riif waay marka hebel ha lagu aruursho gacantiisa duuf bub waxyaalaha dhacay ka mid tahay calaa kulli xaal in iyo wax la cuno oo maaragtay dadka qaraabada la marti qaado oo la duceeyo oo la yidhaah ilaahay la baryo ducadi laysku yaqiin la ducaysto oo ilaahay la baryo oo ducadi soo aroorta lagu ducaysto qofkii yaqaana qofkii kalena af Soomaali ilaahay maaragtay deeq nasi ilaahay maaragtay ilmasi intaas war male laakiin wixii ka soo hera alla u xisaabayn aninka nooma xisaabnee qofkii sameeyay alla kula xisaabtamaaye wax jira ma aha ya badarki iyo maaragtay hilibki iyo alaabtii oo dhan waa la idin ogolaada Sooma wixii kale lagu hoos wada alla ogaan dhaana mogta ducadina waa la idin ogolaada laakiin ترفك أي العباس لوكاتش دعاء سؤال أنا لقول دعاء وبالله توفيق. إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق. سؤاشي روحي هذي قبيسك روح مرك أو أبهضه قبيس واجبة جنابة ليلة مرنا ويس أبهضه صوما مرنا قبيس أبهضه مرك قبيسك قابك الله قبيسناي horta waxa laga ka rabaa qofku markuu qubaysanayo tiirarka qubayska waa laba shay horta waa amal in niyo laga helo inama al-a'malu binniyati wa takalani waxay aaday in kuntum junuban fatahharu soomahin inaad korka dhan marisa laga rabo inaad biyo ku labada tiiro ku qotomo horta sideeda niyo la timaad meesha marka waxyaalaha laga faa'iideysay waxa kamid ah hadii aad soo qubaysato oo sidii la rabo aad soo qubaysato wax weese buriyana aadan markaa la imaan weese mu baahanta mas uma baahnid maxaa yeelay qubaysku xibnaha la marihayo waa jirka oo dhan waay weesadana afar xibnood soo maahayn waxaa la yidhaha al-asgharu yadkhulu fi al-akbar xalka yar wuxuu gelaa midka weyn dhexdiisa u gelaa sidaa darteeda haddaad soo qubaysato oo adugu markii aad maaragtay qubaysanaysay aadan waxyaalihii weesada buri jiraaday taa neef iyo waxyaalihii lamid adugu aadan la imaanin weesadina waa ku jirtaa la soco soo ma garan hal meelo jirka kamid ah hadaadaysana qubayska xabadu kuma jirto soo ma garan hadda intii waa la dhamaan niman madax u dhilan yahay jiray waa horo laakiin ayaguna ma qubaysan jirin ba ay ka qubaysanayaan ma badukadaan diinsan yaqaanin ya madaxa kaadi loogu dhilaaday asoo waliba badar dhiiba nin oo maaragtay ninka u dhilay kaadiyana loogu dhilaaday salaad iyo waxaasna shaqadiis kuma leeyaar waxa waaye wuxuu rabaa inuu yatago xagga si sawir isu muujiyo gooba markuu dacajirka inuu muulax leeyahay muruqa muulax leeyahay geedde loo garan oo gashaa markaas wax xoolo oo neef dibi ma arki jirta amba rati kaba duwana markaas fiirso
laba shay kale iga wad ilaaha naga caafimaadiyey intay ku dambaysan Allah ka caafimaadiyo marka qubaysku waa ka intaasaan haddaba ku sii daynanaa kadibna haddee adugu weydiiso wax walba waa la bartaa biyo sacbaaga looga dhargaa wabillahi tawfiiq su-aasha kale waxay ahayd sawirka wax sahlan maaha haddana waa soo gelay meel walba hadday dukaan tahay hadday maqaayad tahay hadday tahay meel walba dharkan aan haysano ku yaala waan aragtaa hadda maaragtay meel walba waayo gaala ushu haysa nolosha inteeda badan soo ma ayagiiyaa sawirada ku waalan ilaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay qofka musawirka wax sawir inuu nacalaqabay lacana allahu almusawiriina soo ma ayagu ma ogta gaalo waa nacalaqabtay lacnadaasi marka ayagu ka amba qaaday sawirka wax walba sawirka marka qof walba guri oo ku jiro sawirna malaa'ig soo ma gasho nabigu calayhi salaatu wasalaam haddaan malaa'ig soo gelin shayaadiina hergelays oo hoyeys soo saas ma ilaan mii malakatago yaa joog shaydaana joog marka waa in sawirka la iska ilaaliyaa waxa uun loo isticmaalayo waa wixii daruuro ahoon waddo kaloo la maro lahayn sida hadda maalan qaarkood haddaad safrayso kale oo dambaad xaj aadayso sawir la-aan lagaa yeelima baasaboora laga rabaa sawir ku dhegay haddaad tiraa walaxaan dhigaha meelaha qaarkood oo sidii maaragtay xamar oo kale iyo markaad tagto magaalooyinka waxaa lagu leeyahay keen sawir hadda iskool dhigayso jaamacad haddaad dhigayso waxaasoo dhan waa lagu xir soo ma arkina marka guud ahaan sawirku waa sawirkiisi qaara waxay leeyihiin waa xanibid oo hooska ama harka la xanibayo wax kasta sheega soo sawir ma horta sawir waxaan xeeyina daan ku dhaxad leedahay waa rooti maad leedahay sawir waad leedahay lacnadiya agtaala calaa kulli xaal qofkii marka iska habay kara iska habeeyo taasu war male adilada ku soo aroortay aad bay u badan tahay la socda axaadiis bukhaari muslim yani kutubta oo sugan nabigu calayhi salaatu intuu ka hadlay aaday u badan tahay soo ma garan allaahumma wuxuu yidhi waxa maalan geedoo kale iyo haddii maaragtay aadan sanam ka samaynayn sawirada noocaasa sidii maaragtay oo kale haddii laabudda ay tahay taasaad sawiraysa qofka musawirkaa laga hadlaa taas laakiin adiga sawirka intaad iska jeexjeexi karta iska jeexjeex intaad gurigaaga maaragtay yow malaa'igta kaa xanib inuu shaydaan kugu keenin iska habay intii tabartaa waay macnaha laa yukallifu llahu nafsan ilaa wascaha wixii aadan kari karin haddii adoo kari karta haddaad tiraa kari ma karane adiga le kaa horraysa marka xukunkiisu war cad waay kaas nabi maxamed alayhi salatu wasallam intuu axaadiis ka sugnaatay waa la yaab inuu khatar yahay halkaasaad ka fahmaysa marka taasina waa sawirki wabillahi tawfiiq أي قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق دارنا كم حل فيها من معان شاهقات سامقات باللباء دارنا والشعر فيك ازدان عزا يتباهى شامخا في كبرياء دار مريم للمكارم فاحملينا واغرسي فينا عناوين اللقاء قد سمعونا منك في أرقى سمو وتعاهدنا على صدق الوفاء دار خير قد بناها قول ربي نعمة اللبنات من هذا البناء